Ilaahay ha ku jeclaado. Waxaad i bartay sidii aan bilaa qoomamo u dooran lahaa qofkii igu habboonaa. Waqtiga ayaa ku bari doona qofka wehelkaaga noqonaya iyo qofka kaa amban doona intaba. Nolosha laba jeer si isku mid ah kuma siinayso dareen isku mid ah oo waa dhif iyo naadir. Waraaqaha ay ku xardhan yihiin taah iyo xanuunka oo habeen walba buugtiisa xusuus qorka ah ku diiwaangeliyo ayaan subax si kama ku arkay. Afkii ayaa jooqda gabay ama kaag daraatiis baan la ilmeeyay. Se isma lahayn maalin baad arki doontaa qiso lacayna midani. Aan dib ku celiyo sanadkii 2023 bishii Oktoobar. Cawaale weligii ma uusan jeclaan inan ay isku fasal yihiin ama goob waxbarasho ay wada dhigtaan. Se markan dareen qoto dheer ayaa haleelay. Aragsan oo isku fasal ahaayeen ayay xiriir wadaag noqdeen. Waa uu isbedelay. Safcadaha hore ee buuggiisa xusuus qorka ah waxaa ku xardhan maanso yar oo baraha bulshada xilligan tareenka ah. Aragaaga yaa aragsan eegma la ogaada. Udugaaga yaa udgoonsadoo abid ku raaxaysta. Yaa dareeni khiyaarnimo dabeed kugu asqaysiiya. Yaa kuu ilaashada sidii ubad la koolkooliyey. Ixtiraamka yaa kugu dara aamin iyo daacad. Se waxa ay noloshu sida ahaataba waxa uu ka dhigtay mar la arag aan asaageeda ifka lagu arkin. Ayadase waa ay nimo badneed. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu si kadiisa u arkay fariimo ay wadaageen inan kale oo ay Cawaale asxaab kore ahaayeen balse xilliga aysan wada sheekaysan. Cawaale waxa uu inantan ku doortay quruxda kore ee wejiga balse gunta hoose ee aragsan waxa hareeyay khiyaano ayuu heliso hadal macaani iyo qancinta tartamayaasha kala duwan oo ay marba habeen mid shumac u shidayso. Allama hadii muddo kadib saaxiibkay Cawaale hadda waa uu dhameeyay jaamacadda. Noloshiisa waa iska qurux badan tahay. Waxa ay xiriir wadaag yihiin inaan dhigato semesterka ugu dambeeya ee jaamacadda. Dabcan qurux aan waa ay ka dhalaaliyo iftiin badan tahay aragsan. Waxaase u dheer qalbi daacad ah iyo afgaabni wanaagsan. Mid ka mid ah weedhaha yar ee aan buuggiisa xusuus qorka ah ka akhriyay waxa ay leedahay: Ilaahay ha ku jeclaado. Waxaad i bartay sidii aan bilaa qoomamo u dooran lahaa qofkii igu habboonaa. Waad isilciday. Dartaa ayaan uga go'ay qof walba oo aan asxaab ahayn si aan waqti iyo dareen gaar ahba kuu siiyo. Dhambaal walba oo aan kula wadaagay waxa uu ii ahaa xusuus iyo dareen gooni ah. Dabcan waxaad tahay abuur cajiib ah. Waad qurux badan tahay balse dabaday cidna sidaa u silcin. Nasiibkii jaceylkii aan sii lahaa xaaskayga mustaqbalka adiga ayaa wada qaatay. Se garan maayo sidii aan kaaga soo ceshan lahaa. Kolay waan sugayaa beddelkaaga. Caawase ilin kastoo iga soo qabato waxa ay ku dul dhacaysa waraaqaha xusuus qorka ii ah ee i baray duruusaha nololeed ee aan madaariista ka baran. Aragsanay qalinka aan haysto iyo aaladeyda afeed weli ma aysan gaarin heer aan ku cabiro nacaybka dareen ee aan kuu qaaday. Dhab ahaan tegidaadii waa ii jano. Haddii Caawale ay dhaho maba dhacayso waa mustaxiile. Aragsan ayaa nebi ah ee raac ama naar baad galaysaa. Waxa aan doorbidi lahaa inaan jahannamo ku waaro. Ugu dambeyn saaxiibayaal, ilaaliya qulubta kuwa idin jecel. Laga yaabee inay idin siiyeen dareen kama dambaysa.